wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahyada tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonaa murtida halkudhigeedu ay tahay naag been baa lagu soo xero geliyaa runna waa lagu dhaqaa marka ay dhagahaagu ku soo dhacdo maahmaahdan waxaa kugu soo dhacaya inay ku maahmaahi jireen raggii aan lahayn xoolo oo yaradka isaga bixiyo oo ay qasab ku ahaan jirtay inuu isticmaalo haasaawe tab iyo xeelad ah oo uu gabar ku soo jiidan karo haddiiba ay suuro gasho inuu ku guursado been aakhirkii waxay dantu ku kalifaysaa inuu runta sheego waayo soomaalidu waxa ay tidhaahdaa beentu way ku waraabisaa kumase rakaatid maamahdan leh naag been baa lagu soo xero geliyaa runna waa lagu dhaqaa waxaa ka dambayso sheeko laga hormariyo oo la yidhaahdo ninkii subagga ku weysaystay haddii aynu eegno sheekadaasi waxaa la yidhi biri baa nin xantiir ah oo aan lahayn wax xoolo ah oo ku noolaa qaraabka midhaha dabiiciga ah ayaa jeclaaday inuu guursado gabar oo la dhacay quruxdeeda iyo dadnimadeeda wuxuu ku fikiray sida uu ku guursan lahaa wuxuu soo qaatay sibraar caano ka buuxaan iyo buraashad suba ka buuxdo dabadeedna wuxuu isku soo beegay goor barqa ah iyagoo dadkii oo dhan wada maqan yahay keligeedna ay joogto guriga markiiba waxaa bilowday haasaabe muhasho leh in yar kadib waxaa la gaaray wakhtigii salaada duhur gabadhii ayaa ninkii u keentay biyo weyse ah inta uu eegay ayuu biyihii dhinac isaga leexiyey ayuu buraashadii ama umbadii oo subagga ku sitay la soo baxay kadibna bilaabay inuu ku weysaysto subaggii gabadhii intii ay buraashadii ka qaaday ayay tidhi walaal maxaad ugu ciyaaraysaa subagga biyo ayaa lagu weysaystaaye inta uu dhowlo caddeeyey ayuu yidhi naaheedheh dhulka aan ka imid biyo kuma weysaysanno ee waxaan ku weysaysannaa subag ee isii umbada waxaa marar badan arkay buu yidhi dhulal abaar ah oo lagu weysaysanayo biyo markii uu dhammaystay hadalladaasi oo isku ammaanayo ayuu ku yidhi hadalkan naaheedhe ka waran haddaan ku guursado maxaad ka qabtaa markaasay niyadda iska tidhi ninkan barwaaqada ku nool yuusan ku dhaafin wallaahi waxba kama qabo ayay la soo booday isagiina ma daahine hore ayuu ka geeyey sheikh isku meheriyo gabadhii markii ay timid hoogii ninkii ayay u caddaatay in ninkan subag lagu weysaystaa iska dhaafee in yar oo biyo ah oolin hooygiisa waase goorme waa mar ay xeero iyo fadhaal kala dhaceen ileen horaa loo yidhi maroodi jabay ma nuuxsado sheekadu waxay ku socotaa maahmaahda aan hore u soo sheegnay naag been baa lagu soo xero geliyaa runna waa lagu dhaqaa iyadoo maahmaahdu tahay maahmaah soomaaliyeed oo aad u da'weyn horan loo isticmaali jiray ayaa waxay baxday waayadii uu guurka ku xidhnaa xoolo badan ninkii aan lahayn xoolo oo gabar ku doonto wuxuu adeegsan jiray maahmaahdaas hase yeeshee haddii aynu u bandhigno diinta iyo tiirarka lagu haasaabo maahmaahdan iyo kuwo kale oo la mid ahi waa inay si gooni ah kugu socnaadeen waayo haddii uu qofku wax uu ku maahmaahayo aqoonin sida laysku lifaaqo ama loo kala sooco maahmaahyada iyo diinta suurtagal ma aha inuu ka sheego fagaaro ama gole sidaa darteeda dhihi maayo gabdhaha beenha lagu soo xero geliyo runnaha lagu dhaqo aan isweyddiinay ma bannaan tahay in been la sheego kollayta sida ay culimmada noo sheegtay ma bannaana inkastoo ay ka soo reebaan 3 jeer oo iyaguna xaaladahooda si dhiifoon loo daraaseeyo halkaas aan kaga baxno qodobkaasi diiniga ah bal markaan aan soo qabsanno qodobada lagu haasaabo guurku waxa uu ku dhisan yahay in wiilka iyo gabadha isku qanacsan yihiin waxaa haddaba meesha aan ka baxsan karin oo laga doonayaa ninka guurdoonka ahi inuusan ka tegin runta islamarkaana ogaadaa in gabadha ku rabto kuna jecel marnaba kugu diidayn duruufta oo waa tan ay soomaalidu tidhaahdo haween dahab baa lagu saaraa dhegaystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahyadana maanta halkaa inoo joogto ta intaan ku kulmi doonno qayb kale